إلا الله wiilka curadkaygu waay gardaraa loo dilay dulmi ma wadan aqdarra ma wadin waa inuu cadaalad helaa ilmayiisa uu ka tagay qaranka u shaqayhay jida uu iska socda baabuurkiisa wata gaarigiisa lagu dhex dilay sida eheladiisu sheegayaan waa la shirqoolay waxaana loo geystay dil aad u falxun waxaana la jarjaray qayb ka mid ah xubnihiisa iyadoona dhaawaciisa lagu jiiday dhibaato xoogan ayaa loo geystay inta aan la dilin ka hor qofka aan ka hadlayno waa Cali Sugway Maalin oo ka mid ahaa saraakiisha dawladda waxaana sidaa u galay sida ay sheegayaan ehelkiisu dad ka mid ah asxaabtiisa oo ay horwadaag ahaayeen dhacdadan xanuunka badan oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaan rabnaa maanta inaan idin wadaago saaxiibayaal waxaan warbixinteena kula wadaagi doonaa waraysi ay bixiyeen qaar ka mid ah ehelada oo ay ku jirto hooyo muslimo oo dhashay Cali Sugway Maalin oo ah shakhsiga lagu dilay magaalada Muqdisho waliba sida arxan darrada ah ay u galeen sida ay waalidku sheegayaan dad ay shaqo wadaag ahaayeen inta aanan bilaabin muuqaalkan waxaan doonayaa in Cali Sugway Maalin ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho iyadoona eheladiisu ay sheegeen in loo geystay shirqool oo inta aan la dilin ka hor lagu balamiyo goob kadibna loogu imaaday meeshii lagu balamiyay iyadoona la dilay asoo dhaawac ah ayaana gaariga lagala baxay waxaana la geeyay meel duur ah oo lagu gowracay waalidiinta iyo ehelku waxay sheegayaan Cali inuu ka tagay caruur gaaraysa tira ahaan 6 oo uu gacanta ku hayay iyo hooyadii iyo aabihii isaga dhalay Cali Sugway wuxuu ahaa sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka sida ay sheegayaan xubno ka mid ah qoyskiisa warbixinta Cali ayaana imaanaysa xilli magaalada Muqdisho ay ka jiraan xaalad siyaasadeed oo kacsan oo siyaasiyiinta dawladdu ay isugaarsanayaan muhiimna sida waalidiintu wax u sheegayaan in arrinku u dhacay balse waxaan rabaa inaan kula wadaago si aad ugu bogotid dhacdadan لا إله إلا الله wiilka curadkaygu waay gardaraa loo dilay dulmi ma wadan aqdarra ma wadin waa inuu cadaalad helaa ilmayiisa uu ka tagay qaranka u shaqayhay jida uu iska socda baabuurkiisa wata gaarigiisa lagu dhex dilay gardaraa hore loo qaatay waa inuu cadaalad helaa wiilkiisii oo la socda ilaahay ka badbaatay asagoo la helay asagoo jirkiisa ay gooyeen hadday dilaan waa jiideen markaad leedahay waa inuu cadaalad helo waxuu ka tagay 6 caruurow ka tagay 6 caruura oo jicisow ka tagay oo mulqsha oo ilmaha ilmaha iyo aniga iyo adoonka u shaqayhay Cali Sugway Allah u naxariisto jinna Allah ka waraabsho intuu ka tagayna door xasana Allah ka dhigo xaq darrada lagu dilay iyo bini aadamnimada la isticmaal wax ilaahay raali ka yahay ma aha waxa dilay dawladda aniga hadda dawlad isku shaagna dhihi ma karo dawlad cadaaladna dhihi ma karo laakiin waxa qaroola dilay waa la dilay gaarigiisa lagu dilay waa lagu xabadeeyay asoo dhaawac aha lagala baxay carrabaadiya oo fogaa la geeyay waa lagu bireeyay dhulka lagu jiiday waxa la yiri maxay aheeday gaal waaye hal jiidalay gaal marka qof islaana oo nafteedii loo yimiday oo xaq darro lagu dilay gaal lama dhihi karo ninka oo dawladda u shaqeeyay mas'uul ninka yiri asiga ka jawaabay ma la aasayo mana la aasi karo waa in horta markii la aasayo in jawaabtaas la bixiyo oo si kulul oo bini aadanimada kamida waa lagu isticmaalay waxaan u diraynaa dawladda islaamka ra'iisul wasaaraha duqa magaalada madaxweynaha kulli wax aan dhaafayno haba yaraadee ma jiraan waa inay waaba kii dilayba kaas muxuu noo sheegaa ninkii dilay asiga waa la yaqaanaa faarax qarool waa la yaqaanaa ulajeedadu u dilana waa inuu ka jawaabo mana la duugaayo ilaa in jawaab laga bixiyo insha Allah ta'ala dadoo ka dhashay talow leeyahay nafuu leeyahay islaam waaye xaq darra lagu dilay
فرح والدين دوادين ما أقولين حق در ما أقولين أول walaalkay cali sugay maalin Allah u naxariisto waxaa disha gacan ka gardaran waxaan ahay ahaladiisi adeerkeeyaa dhalay duluna lagu dilay gurigiisa loogu tagay meeshow deganaayo ku dhashaa loogu tagay sargaal ciidamada dawladda ah oo shaqeeya oo xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahay nin saaxiibul xaas oo ahay waxaa loo dilay cali sugay maalin waxaa loo dilay si ulakac ah oo bareera oon kama ahayn oo kasa waa la dalbaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka tirsanay infiitow ku taga meesha waa la dalbay ka bacdina waa la dilay shirqoolaa lagu dilay si waxaa loo dilay khayru caadiya korkiisa meel fayaaw lagama reebin intii farta la saaro sidaas dulunka ahaa lagu dila wiilkayni waxaan doonaynaa in cadaalad la helo oo cadaaladdu u soo hiiliso oon dulunkaasu asan shaqayn ninka la yidhaahdo farxaan qaroole oo ah beesha Saleemaal Habargidir ayaan ka doonaynaa wiilkayna cid kale ma u aadayno ka dooni mayno lana duugi maayo firinjiteera la geliyay amarka lagu dila asagaa bixiyay infiitado meesha ku taga asagaa siiyay waxaan fariin u diraynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho saraakiisha ciidamada aan baaqu diraynaa ma doonayno si duluna oo khayru caadiya oo gaadma ah oo aan ahalnimo ahayn lagu dila wiilkayni warqadaas loo keenay infiitada ah oo lagu dalbay asagoo gacanta ku haya la dilay isagoo gacanta ku hayo una ku dhinto gacantiisa laga bixiyay maydka lama aasaayo firinjiteer la geeyay waxaan doonaynaa in cadaalad la helo in ninkaasaana naga dilay iyo in la waayo asaan heerkii wax naga dilay Saleemaal Habargidiraa wax naga dilay waxaan nahay Abgaal Ismaan waxaan doonaynaa si cadaalada in lagu helo wiilkaas oo cadaaladiisa dawladdu aqalka sare aqalka hoose wasiirada madaxweynaha gudoomiyaha gobolka dawladda ay arintaas soo faragelisaan doonaynaa cali sugay maalin anugu adeerkiisaanahay wuxuu ka tagay ilmo caruura oo sakhiiraa oon halqaan gaar asaan ku jirin nin sargaalaho waayo gaashaan la saraa oo ciidanka xoogga ka tirsan waxaa loogu keenay gurigiisa infiito shiraa loo wada lagu shirqoolaayo lagu dilaayay waxaa la geeyey deegaankiisa asagu ku dhashay wuxuu ku dhalay deegaanka jasiira leerow cali sugay ku dhashay kuna barbaaray asagaana lagu dilay waxaana dilay ninka faarax qaroora la yidhaaho beesha Saleemaal ka dhashay asagaana ka rabnaa faarax qaroolaan ka rabnaa oo ka dhashay beesha Saleemaal lana duugi maayo ilaa looga helo cadaalad waxaan ka codsanaynaa dawladda aqalka sare iyo aqalka hoose madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka iyo golaha wasiirada waxaan ka codsanaynaa cali sugay maalin in loo helo cadaalad iyo ciidanka iyo saraakiisha iyo afarigaar oo laga dilay beesha Abgaal Ismaan lana duugi maayo ilaa looga helo cadaalad looga helana firinjiteer ku jirayaan Allah u naxariisto gacanka gardaran baa dishay si arxan daraa loo dilay oo muslimka baxa inay dileen ay bireeyaan ay calooshiisa banaanka keeneen dhulkana ku jiideen arxan daray u dileen dhulka ay ku jiideen raalina kama nahin ilaa cadaalad looga helo afarigaar baan ka dilaan oo Abgaal Ismaan cadaalad baan doonaynaa haddii oo cadaalad aan wayno waan banaan baxaynaa nin walbana meesha ku jiro waa la yaqaanaa la kala maadan maayo Saleemaana nimankayna waa u doonanaynaa ilaa cadaalad laga helo lama duugaayo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun cali sugay maalin cali Allah u naxariisto sabar iyo iimaan Allah naga siiyo daba iyo wiilasha la dhintay ee ciidankiisa ka mid ka ahaa
allah u naxariisto awalan marka labaad cali suguwey maalin iyo ciidanka la dhintay ee afghanistan waa inay cadaalad helaan cadaaladdaas waxaa looga fadhiyaa dowladda soomaaliya saraakiisha ciidamada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka wasiirka amniga iyo wasiirada dhammaan iyo in qolo kastoo ay qosayso cadaaladda u hiilinaysa haddii loo hiili waayo ninkaas waxaa dilay farxan qaroolaa dilay waad garanaysaan annana waan garanaynaa waa saleebaan waa reer nimanka la yidhaahdo waa niman la yidhaahdo waa saleebaan waa faarax rooble waa farax waan garanaynaa meeshuu joogaan naqaan waalidkiisaan naqaan walaalihiisaan naqaannaa asaga ayaan u doonahaynaa haddaan weyno cadaalad asaga iyo dadkiisaan u doonaynaa mana qarinayno lamana duugaayo ilaa cadaalad laga helo ma duugaynaa afghanistan waa diideen in maalin walba la xasuuqo laamiga lagu jiido meydkoora mindhicirihiisa geedaha lagu saabiyo waa ka soo jeesteen waa ka dhiidhiyeen maxaad u malaynaysiin gabdhihii waa aragteen raggana maxaad u malaynaysiin ogaada waxay joogtaa qaabaan qowsanay joogtaa marka TV-ga Somali Cable oo ahaa TV-ga soo geliyay warbixintan ayaa si degdeg ah uga saaray lamana uga sababta keentay in TV-gu uu ka saaro warbixintan oo ahayd cabasho ay dad Soomaaliyeed dawladda uga codsanayeen in wiilkoodu uu helo cadaalad oo kuma santa daawashada muuqaalkan fadlan daawada hadii ay tahay marka koobaad aad soo booqato channelkeena subscribe oo furo gambalaalka si aad u noqdo daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid